السلام عليكم dhamaantiin saaxiibada sharafta badan. Filimku wuxuu ku bilaabanayaa haweeney magaceeda la yiraahdo Alicia West oo u socota orod subaxdii hore. Qaar ka mid ah askarta booliiska ayaa joojiyay oo isku dayay inay si adag u xiraan, laakiin kadib waxay ogaadeen in lafteeda ay tahay sarkaal cusub oo booliis ah. Marka kaliya wuxuu ahaa kiis aqoonsi oo khaldan. Way ka raali geliyeen maadaama ay aad u xanaaqday. intaa kadib Alicia waxay aaday qabuuraha si ay u soo booqato qabriga hooyadeed. maalintii xigtay ee shaqada, Alicia waxay u sheegtay kaaliyaheeda in ku soo laabashadeeda shaqada aysan ahayn mid soo dhaweyn leh. kaaliyaheeda Jennings ayaa markaa u sheegay Alicia inay dareemi doonto fiicnaan marka ay roondada u wada baxaan. intii ay baabuurka wateen, Alicia waxay aragtay in badi guryaha ku yaalay wadooyinka ay dumeen. waxay la kulmeen aag lagu magacaabo Kingston Manor oo ah xaafad sabool ah oo ay Alicia ku soo kortay. Jenny ayaa u sharxay Alicia in hadda ay tahay meel ay ku nool yihiin dadka xunxun. booliiskuna xitaa kama jawaabaan wicitaanada xaafadaas, haddii kale askarigu dhibaato ayuu kala kulmi doonaa. Jenny ayaa u sheegay Alicia inuu doonayo inuu istaago maqaaxida kafeega. isla markii uu baxay suuq kafeega u soo qaato, Alicia waxay la kulantay wiil yar oo Jamaal la yiraahdo. iyagoo wada hadlaya ayaa waxaa soo baxday Jamaal hooyadii oo ku qaylisay Jamaal si uu uga fogaado Alicia. hooyadu waxay si gardaro ah uga digaysaa Alicia inay wiilkeeda ka fogaato. mulkiilaha dukaanka, nin lagu magacaabo Mouse, ayaa soo dhexgalay oo u sheegay Alicia inaanay doonayn inay dhibaato ka dhacdo dukaanka. Alicia ayaa mid ka mid ah haweenka kooxda la jirta u aqoonsatay saaxiibteed hore, Missy, taasoo ah hooyada Jamaal. laakiin Missy way dafirtay inay taqaan Alicia oo waxay iska dhigaysaa inaysan aqoonin. Missy kadib waxay ka tegaysaa dukaanka iyada iyo kooxdeeda, iyadoo iska fogeynaysa Alicia oo aan aqoonsanayn saaxiibtinimadoodii hore. Jennings, Alicia kaaliyaheeda booliiska, ayaa u sheegay in Missy iyo kooxdeedu ay qayb ka yihiin baandada Kingston ee xifaaltama. marka Alicia waa inay ka taxadartaa agtooda. Alicia waxay ku soo noqotay dukaanka waxayna kala hadashay Mouse wax ku saabsan xiriirka iyada iyo Missy. Mouse wuxuu sharxayaa in Missy ay haysato arrimaheeda dhibaatooyinna dhex gashay. taasina waa sababta ay sida xun ugu dhaqantay oo ay iskaga fogeysay Alicia inkastoo ay ahaayeen saaxiibo hore. intay Alicia iyo Jennings ay ka baxayaan dukaanka, Alicia waxay hubinaysaa inay bixiso kafeega uu Jennings hore u soo iibsaday, taasoo muujinaysa mahadnaqeeda. markay ku noqdaan saldhigga booliiska, Jennings wuxuu u sheegay Alicia inuu caawa leeyahay balan. intay arrintii ka hadlayeen ayaa waxaa yimid sarkaal kale oo Serge la yiraahdo. Serge wuxuu Jennings u sheegay inuu u baahan yahay Jennings inuu caawa shaqeeyo 2 wareeg. Alicia ayaa markaas soo bandhigtay inay qabato shaqada Jennings soo waqti ula qaato qoyskiisa. Serge wuxuu u sheegay Alicia inay la shaqayn doonto sarkaal lagu magacaabo Deacon Brown, ayna kula kulmi doonto howlka dhexdiisa. Jennings wuxuu uga mahadcelinayaa Alicia qabashada shaqadiisa si uu u aado balanta. Alicia waxay la kulantay Deacon Brown waxayna u sheegtay inay caawa qaadanayso shaqada Jennings. Deacon aad uguma faraxsana arrintan sababtoo ah Alicia ayaa weli ku cusub shaqada. wuxuu weydiiyey inay hore u qabatay shaqo habeen. waxay ku jawaabtay maya, balse waxay ku dartay inay tahay haliyeyad qandahar ka soo jeeda. Deacon ayaa markaas weydiinaya Alicia haddii ay u baahan tahay inay xirato body camera. Alicia ayaa u sheegtay in ilaa iyo inta uusan samayn wax qalad ah aysan jirin wax dhib ah oo ku saabsan xirashada body camerada. intay wataan baabuurka ayaa laga soo wacay goob baar xaafadeed ah, halkaasoo laga yaabo in tuhmanuhu uu bastoolad haysto. markii ay goobta soo gaareen ayaa waxay arkeen 2 qof oo la tuhunsan yahay oo dagaalamaya. Alicia waxay isku dayday inay dejiso mid ka mid ah tuhmanayaasha, laakiin tuhmanaha kale ayaa isku dayay inuu la soo baxo bastoolad si uu u toogto Alicia. Deacon ayaa arkay tan oo si qalafsan u xiray tuhmanaha oo sitay bastoolad. Alicia waxay ku qaylinaysaa Deacon si ay u joojiso qalafsanaanta uu kula dhaqmayo ninka dhalinyarada ah ilaa uu Deacon ka helo bastoolad jeebka dambe ee tuhmanaha. kadib Alicia way joojisay hadalka. intii ay cashaynayeen, Alicia waxay raaligelin ka bixisay Deacon oo ay uga mahadcelisay badbaadinta nolosheeda. Deacon ayaa u sheegay inay tiraahdo waan ka xumahay aysan ku badbaadin doonin ammaankeeda. wuxuu u sheegay in askarta kale ee bilayska iyo dadka rayidka ah aysan hadda ahayn qoyskeeda. intay wada hadlayeen, Deacon waxaa laga soo wacay telefoonkiisa. wicista kadib wuxuu u sheegay Alicia inay tagaan maadaama uu jiro wicitaan kale oo soo socda. Alicia way werwersan tahay sababtoo ah wicitaanku wuxuu ku soo dhacay telefoonka Deacon. subaxdii xigtay, Alicia iyo Deacon waxay yimaadeen meel gaar ah. markay halkaas tagaan, Alicia waxay u sheegtay Deacon inaysan fahmin sababta ay meeshan u yimaadeen. Deacon wuxuu ku amray Alicia inay gaariga ku sii jirto oo ay sugto, sababtoo ah wuxuu u baahan yahay inuu la kulmo qof xog ogaal ah, qof siiya booliiska macluumaadka gudaha ee ku saabsan faldambiyeedka. Alicia waxay ogolaatay inay ku sugto baabuurka. markuu Deacon dhaqaaqay suu shirkan ula yeesho xog ogaalka, isagoo halkaas uga tegay Alicia say u sugto soo laabashadiisa. iyadoo Alicia ay ku sugayso baabuurka sida uu faray Deacon, ayaa waxay dareentay qof isku
dayaya inuu jabsado oo uu xado gaari baakinka yaala. Alicia waxay si degdeg ah isugu dayday inay gacanta ku dhigto tuuga gaariga xadeeyay, balse wuxuu ku guuleystay inuu ka cararo oo uu goobta ka baxsado ka hor intaanay xirin. Isla markaa Alicia waxay maqashay dhawaqa rasaasta ka imanaysa jihada dhismaha uu Deacon u aaday si uu ula kulmo wargeliyaha. Iyadoo dareemaysa kacsanaan iyo ka walaacsanaanta badbaadada taliyaheeda, Alicia waxay go'aansatay inay ku degdegto dhismaha si u caawiso. Ka hor intaysan gudaha u gelin, waxay si degdeg ah u daaraysaa body kamirada ee ay xiran tahay, iyadoo diyaar u ah inay ka hortagto xaalad kasta oo ay geli karto. Marka Alicia ay gasho dhismaha, waxay ku arkaysaa Deacon oo ay weheliyaan laba askari kale, Marlon iyo Smithy. Waxay la heshiinayaan qaar ka mid ah ganacsatada daroogada. Askartu waxay arkayaan Alicia oo daawanaysa. Marlon wuxuu isku dayay inuu u sharxo xaaladda, laakiin Smithy oo arkay body kamirada ee Alicia ayaa toogtay. Alicia way dhacday, laakiin way nasiib badan tahay sababtoo ah waxay xiran tahay jaakada xabadda celisa oo ay ku dhacday meel wanaagsan. Marlon wuu xanaaqay oo u sheegay Smithy inuu soo qabto Alicia iyo body kamiradeeda. Marlon wuxuu ku eedeeyay Deacon inuu goobta keenay askari cusub sida Alicia. Marlon ayaa u sheegay Deacon inay u sheegi doonaan saldhigga in Alicia la dilay intii lagu jiray weerarka daroogada. Wuxuu u sheegayaa Deacon inuu baxo oo uu caawiyo askariga kale, Smithy, ee ay raadiyaan Alicia. Intay wada hadlayaan, Smithy wuxuu u sheegay Marlon inuu soo qaban waayay Alicia. Iyada iyo dhaawaceeda, Alicia ayaa weli isku dayaysa inay ka baxdo xarunta korontada. Waxay wacday gurmad, laakiin Marlon ayaa joojiyay wicitaankeeda isagoo sheegay inuu wax walba gacanta ku hayo, booliiskuna u baahnayn inay walwalaan. Smithy wuxuu arkayaa Alicia iyadoo isku dayaysa inay ka baxdo dhismaha. Xabad ayuu ku bilaabay. Marlon iyo dambibaarayaasha kale ayaa dabagalay. Alicia waxay dhex maraysaa xaafadda iyadoo ka dhuumanaysa booliiska caadaqaatayaasha ah. Waxay isku dayaysaa inay dadka caawimaad weydiisato, laakiin way ka jeesteen iyagoo leh ma doonayno wax dhib ah. Marlon iyo kuwa kale waxay arkeen Alicia, laakiin waxay maamulaysaa inay mar kale ka baxsato iyaga. Kadib markii ay carartay, Marlon wuxuu u sheegay Smithy iyo kuwa kale inay iskala qaybiyaan oo ay si weyn u raadiyaan Alicia. Kadib markay ka fogaatay Marlon, Alicia waxay la kulantay baabuur booliis ah. Way u gacan haadisay oo caawimaad weydiisatay. Saraakiishu waxay u ballan qaadeen inay caawinayaan oo ay u sheegeen inay wax walba hagaagi doonaan. Laakiin Alicia waxay isla markiiba ogaatay in booliisku ay sidoo kale qayb ka yihiin kooxda caadaqaatayaasha ah ee Marlon. Sidaa darteed way ka carartay mar kale. booliiska caadaqaatayaasha ah ayaa dabagalay Alicia iyagoo dhahaya kaliya waxaan rabnaa body kamarada, laakiin Alicia way baxsatay oo u carartay dukaan uu leeyahay qof lagu magacaabo Mouse. Markii Alicia ay halkaas tagto, Mouse wuxuu arkay xaaladeeda wuxuuna u sheegay inaysan ag joogi karin dukaankiisa oo ay u baahan tahay inay isla markiiba baxdo. Alicia ayaa u sharaxday inay booliisku toogteen oo ay u baahan tahay oo kaliya inay telefoon ka wacdo kaaliyaheeda. Kadib markay joojiso dhiigga, waxay sheegaysaa inay bixi doonto. Alicia waxay wacday kaaliyaheeda Janin oo u sheegtay waxa dhacay. waxay sheegtay inay u baahan tahay inuu saldhigga booliiska u diro muuqaalka body kamerada ay duubtay. Janin wuxuu sheegay inuu ugu imaan doono 30 daqiiqo gudahood. Kadib markii Alicia ay dhamaysay la sheekaysiga Janin, sarkaal booliis ah ayaa soo garaacay albaabka. waxaa soo baxday in Mouse uu booliiska ugu yeeray Alicia. Mouse wuxuu raali geliyay Alicia isagoo sheegay inaanu ku lug yeelan karin arrintan. Wuu tagayaa si uu ula macaamilo booliiska. booliisku si qalafsanaan ku jirto ayuu ula dhaqmay Mouse. Wuxuu u sheegay inuu madaxiisa saaro miiska inta uu katiinadaynayo. Intuu Mouse halgamayo, askarigu wuxuu u sheegayaa saaxiibkiis oo ka soo galay albaabka dambe isagoo raadinaya Alicia inuu hubiyo aqoonsiga Mouse. Kadib markii ay ogaadeen in Mouse uu leeyahay diiwaan nadiif ah, way iska sii daayeen. Mouse ayaa diiday inuu u sheego sababta uu ugu yeeray booliiska. Sheeko been ah ayuu u sameeyay oo ku saabsan sida ay booliisku ula dhaqmayeen isaga. Saraakiisha ayaa ka tagay Mouse iyagoo sheegay inay la socon doonaan isaga. Alicia ayaa uga mahadcelisay Mouse inuu ka qariyay askarta. Waxay tiri mar haddii ay joojiso dhiigga inay ka bixi doonto dukaankiisa. Alicia waxay isticmaalaysaa xoogaa xabag ah si u xirto dhaawaca, xirfad ay ka soo baratay daaweynta askarta Mareykanka ee Ciraaq. Waxay la kulantay kaaliyaheeda Janin oo u sharaxday wixii dhacay. Laakiin markaas Alicia waxay ogaatay in Janin uu sidoo kale qayb ka yahay kooxda musuqmaasuqa ee Marlon. Alicia waxay ku qasabtay Janin inuu gaariga joojiyo. Way katiinadaynaysaa kadibna way ka tagaysaa. Alicia waxay tagtay guriga Mouse, waxayna u sheegtay inay u baahan tahay meel ay ku hoyato ilaa iyo caawa. Mouse wuu walwalsan yahay mana rabo inuu ku lug yeesho arrintan, laakiin markuu ogaado sida xaaladeedu u daran tahay wuu u ogolaaday inay joogto. Dhanka kale, Marlon ayaa u sheegay kabtanka booliiska in intii uu socday dagaal dhex maray laba burcad, shaqaalaha Tribunines Kingston iyo Alicia ay toogteen oo dileen ilmo yar. Ilmaha ayaa adeer u ah hogaamiyaha shaqaalaha Kingston oo lagu magacaabo Darius. Darius ayaa goobta yimid oo arkay wiil uu adeer u ahaa oo dhintay. Marlon been buu u sheegay oo yidhi Alicia ayaa dishay wiilka. Tani aad bay uga caraysiisay Darius oo wuxuu ku amray raggiisii inay raadiyaan oo dilaan askarigii dilay wiilka uu adeerka u ahaa. Janin wuxuu u sheegay Marlon in Alicia laga yaabo inay u tagtay qof dukaan gaar ah meelahan ku leh si caawimaad u hesho. Sidaa darteed waxay aadayaan dukaanka oo ay eegayaan muuqaalada kaamarada.
waxay ogaadeen in Alicia ay tagtay halkaas caawimaadna ay weydiisatay milkiilaha dukaanka Mouse. Dhanka kale burcadda Kingston ayaa madaxa Alicia dul dhigay dilka wiil uu adeer u yahay Zero. mid ka tirsan kooxda burcadda ah Jamal ayaa aaday guriga Mouse oo uu bastoolad ku fiiqay madaxa Alicia, laakiin Mouse ayaa soo galay. Jamal ayaa markaa tusay boor la wareejinayay oo ku saabsan Alicia inay dishay Darius wiilkiisa. Intay wada hadlayaan booliiska caadaqaatayaasha ah ee Marlon iyo Smithy ayaa ka soo muuqday guriga Mouse, laakiin Alicia iyo Mouse way ka baxsadeen xaafadda. Waxay la dagaalameen kooxda Darius, laakiin Mouse ayaa laga toogtay lugta. Wuxuu u sheegay Alicia inay aado oo ay la kulanto wadaad uu ku kalsoon yahay oo aanay ka welwelin isaga. Intuu Mouse sii baxayo ayaa waxaa qabtay Darius. Darius ayaa geeyay xaruntiisa oo uu jir dilay, isagoo dalbanaya inuu u sheego halka ay Alicia ku jirto, laakiin Mouse ayaa diiday inuu wax war ah bixiyo, isagoo sheegay in Alicia ay tahay qof wanaagsan oo aysan dilin wiil uu adeer u yahay Darius. dhanka kale Alicia waxay isticmaalaysaa body camera si ay u samayso muuqaal ay ku sharxayso inuu ahaa booliiska caadaqaataha ah ee Marlon kan dilay Darius wiilkiisa, mana aha iyada. kaamarada ayay ku qarisay armaajo kadibna waxay aadaysaa xaafadda Kingston si ay isugu dhiibto Darius. Markuu Darius ku dhow yahay inuu dilo Alicia, waxay u sheegtay in Marlon uu ahaa kii dilay Zero oo ay dhammaan ku duubtay body cameradeeda. Darius ayaa markaa u sheegay wiilkiisa Ted inuu haagareeyo muuqaalka body camerada. Marka hore Ted wuu jabsan kari waayay muuqaalka body camerada sababtoo ah waa la xiray, laakiin kadib markii uu isku dayay in badan ugu dambeyntii wuxuu ku guuleystay inuu galo. Markii Darius uu arkay muuqaalka wuu niyad jabay. Wuxuu u fasaxay Mouse inuu baxo, laakiin kadib booliiska ayaa soo weeraray guriga. Waxaa dhacay israsaaseyn weyn. Marlonna wuxuu ku guuleystay inuu dilo Darius. Dhanka kale Alicia waxay la baxsatay Mouse. Dagaalka kadib Smithy wuxuu dilay sarkaal kale oo lagu magacaabo Brown sababtoo ah waxay hore uga doodeen cidda mas'uulka ka ah Alicia inay baxsato. Smithy wuxuu helay Alicia iyo Mouse kadib markii uu joojiyay sarkaal booliis ah. Smithy ayaa dilay sarkaalka kadibna weeraray Alicia iyo Mouse. Dagaalka Alicia waxay ku guuleysatay inay disho Smithy. Kadib Mouse wuxuu u sheegay Alicia inaysan jirin wado ay nolol uga baxsato maadaama ciidanka booliiska oo dhan ay daba socdaan iyada. Wuxuu u sheegay inay siiso body camerada suu muuqaalka ugu diro saldhigga booliiska. Intuu Mouse sii baxayo Jennings Alicia kaaliyaheeda wuu arkay isaga, laakiin wuu u ogolaaday inuu dhaafo. Dhanka kale Marlon wuxuu helay Alicia oo waxay galeen dagaal weyn. Marlon wuxuu ku tuuray daaradda dad badan hortooda iyadoo gacan ka helaysa Jamal hooyadiis Macy. Alicia waxay qabsatay bastoolada Marlon, laakiin koox shiishyahanno ah ayaa amar ku bixiyay Alicia inay dhigto hubka haddii kale ay toogan doonaan. Mouse ayaa soo gelinaya muuqaalka body camerada. Kabtanka booliisku waxay aragtay muuqaalka kadibna waxay u sheegtay kooxda SWAT inay joogsadaan. Marka Marlon uu arko muuqaalka la soo geliyay wuxuu isku dayay inuu toogto Alicia, laakiin Alicia kaaliyaheeda Jennings ayaa halkii ku toogtay Marlon. Marlon ayaa markaa loo xiray dil. Waxaas oo dhan Alicia waxay ku kasbatay ixtiraamka qof walba. Muuqaalkan ayuu ku egyahay. fadlan taabo subscribe iyo like haddaad jeceshahay muuqaaladan oo kalena commentiga hoose noogu reeb. kulanti dambe oo aad u xiiso badan. mahadsanid.